السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Yasma channel saaxiibayaal haddii aad hore noola joogteen like-tan aga ilaawina haddii aad ku cusub tahayna fadlan gambeelka furo si ay idiin soo gaaraan fiidiyoo cusub aad ka faa'iidi doontaan insha Allah. maanta waxaan ku hadli doonaa barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa pharmacology-ga ama barashada daawada. waxaan ka soo hadalnay qaybihii ugu dambeeyay horodhacyadii ku saabsanaa pharmacology-ga ama barashada daawooyinka. maanta insha Allah qaybtan waxaan uga hadli doonaa sida la socotaan kaniiniyaasha ama daawooyinka. waxaa la socda warqad yara oo daawo kasta markaad soo gadanaysid boxka ay ku jirto waxaa la socda warqad yara. warqadaasi waxay ku qoran daawada ku dhex jirta kartoonka ama boxkaas. daawadaasi waxay tahay waxa loo isticmaalo saameynteeda qofka aan qaadan karin inta xaddiga laga qaadanayo, dadka daawadaas aan qaadan karin waqtigay daawada dhacayso. marka waxaa ku qoran faahfaahin dheeraada ilaa xad oo ku saabsan daawadaas ku dhex jirta kartoonka. marka warqadaas waxaa loo yaqaanaa leaflet baa loo yaqaanaa leaflet. waxay ka kooban tahay ilaa 9 ama 10 waxyaabood. qaybta ugu horeysa warqadaasi waxaad ku qoran kaniiniga aad soo gadatay compositionka ama kiimikada ay ka kooban tahay. waxaa kaloo ku qoran indication use-ka, yacni isticmaalka daawada maxaa loo isticmaalayaa. waxaa ku qoran side effect, daawadaas saameynta ay leedahay markii la qaato. qaybta afraad waxaa ku qoran adverse effect oo ah ka hortaga ama saameynta ay leedahay. sidoo kale waxaa ku qoran warning ama degniin, daawadan yaa looga digayaa maaragta ay khatar ku tahay inay qaadato. sidoo kale qaybta 6aad waxaa ku qoran risk and precautions, yacni khataraha daawadan ay leedahay, yacni in daawadani ay maaragta khatar ku yeelan karto dadka qaar aysan isticmaali karin. dose and admission, qiyaasta iyo maamulidda daawada iyo habka loo isticmaalayo iyo inta laga qaadanayo. contraindication, cidda aan daawadan la siin karin oo mamnuuc ay ka tahay. manufacture data, daawadan xilliga ay soo baxday, daawada expiry date, xilliga ay dhacayso. marka daawo kasta markaad soo gadanaysid kartoonkaas ay ku dhex jirto, warqada yarta ay kartoonka ku dhex jirta baad haddaad akhrisid waxaad ka helaysaa dhammaan macluumaad yacni waafi ah oo aad maaragtay min bilow ilaa dhammaad daawadaas xogteeda oo dhan aad xaggaas ka heli kartid. marka haddii aynu xoogaa yara faahfaahino, marka koowaad warqadaasi waxaa ku qoran sidaan sheegnay horodhacii hore composition waa kiimikada ay daawada ka kooban tahay. tusaale ahaan amoxicillin waxaa ku jira wax loo yaqaano magnesium citrate iyo lactose monohydrate, waxayna ku jiraan amoxicillin kasta. indication use-ka masalan daawadaasi yaa isticmaali kara ama maxaa loo isticmaalaa daawadan. use-keeda maxaa weeye isticmaalka iyo waxtarka daawada. daawo kasta waxay leedahay isticmaal iyo waxtar u gooniya. tusaale ahaan meelo badan ayaa daawada laga isticmaalaa sida afka, xagga dambe, xididka, dhagaha iyo meelo kala duwan oo kale. adverse effect-ga waa ka hortaga iyo saameynta. tusaale ahaan daawada waxaa 2 nooc sida daawo loo qaato, yacni daawo kasta waa 2 nooc. daawo la qaato cuntada kadib iyo daawo la qaato cuntada ka hor. haddii uu qofku qaato daawo loogu talagalay cuntada kadib, daawadaas waxay ku yeelan kartaa saameyn ballaaran. side effect, saameynta daawada ay ku yeelato qofka. tusaale ahaan waxaa dhici karta in daawada qofka ay saameyn ku yeelato sida inuu ku suuxo ama ku wareero. warning waa degniin looga digayo qofka waxyaabaha ka imaan kara daawada sida inuu uurka waxyeelo. masalan qoday tahay qof uur leh oo kale hooyo ah, daawada inay iska fiir daawada ay qaadanayso ma loogu talagalay qof uur leh inuu qaato iyo in kale. iyo haddii uu si qaldan u isticmaalo waxyaabaha ka dhalan karo. risk and precautions, khataraha daawada waxay timaadaa markii si qaldan ama meelo qaldan laga isticmaalo daawada. tusaale ahaan daawo loogu talagalay in laga isticmaalo sinta, haddii uu qofka ka isticmaalo xididka waxaa saameyn karta khatarta u weyn ee daawada ka dhalata. dose and admission, qiyaasta iyo maamulidda daawada. daawo kasta waxay leedahay qiyaas laga isticmaali karo. qiyaas kasta
oo ah midda uu dhakhtarku qoray ama midka ku qoran leafletka. contraindicationka daawo kasta waxay leedahay dadka qaar oo cudurada qaar qaba ama dad kooban oo laga mamnuucay daawadaas inay qaataan. marka daawo kasta kaniini kasta markaad soo gadanaysid boxka warqad kasta waxaa ku qoran contraindication, dad gaara oo daawada laga mamnuucay inay qaataan ama xaalado gaara oo laga mamnuucay daawada inay qaataan. marka tusaale ahaan lama qaadan karo daawooyinka uurka baabi'iyo, xasaasiyadda kiciya iyo kuwa drugska ah. manufacturing data, xilliga daawada lasoo saaray, tusaale ahaan daawo ayaa waxaa lasoo saaray 2019 yani waxay ku tusinaysaa warqadaasi daawada xilliga lasoo saaray. expiry date, xilliga ay daawada ay dhacayso, tusaale ahaan daawada waxaa lasoo saaray 2019 waxayna dhacaysaa 2022. marka warqada yarta ay la socota daawo kasta waxay ku siinaysaa macluumaad dhammaystiran oo waafi ah oo ku saabsan kaniinigan inta aadan qaadan inaa xog dhammaystiran aad ka ogaatid. marka saaxiibayaal insha Allah cashirkeeni maanta intaas ayuu ku egyahay. insha Allah waa inoo qaybaha dambe ee barnaamijyada aynu uga hadli doono barashada pharmacology ama daawada. insha Allah fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan like and share.